barasaabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceerigaabo iyo waliba isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha iyo waliba xafiiska ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ay ku yeelan doonto gobolka Sanaag waxaana ugu horeynba dhagax dhigaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur saaka goobtuna shacbiyeeriya oo linka biliiska barbarkiisa waxaanu siinay wasaaradda isgaarsiinta waxa jira asqaas aanu garan waayay muraaday leeyihiin oo hadalka keentay aanu dhulkan qaadan maayo maayarna qaadan maayo shakhsina qaadan maayo hadii dawladdu lahaydna dawladdu baa loo dhisaya waxaanu fas ka sameeyno biliis baa lahaa iyo hebel kala lahaa iyo anigu muraad laga leeyahay maan garanin wali waxaanu leenahay meeshu waa shacbiyeeriya hawlaha guud iyo wasaare iyo barasaabka xukuma annaga bixinay cidii muraad kale iyada cadaysan doonta biliisku haduu dhul baahan yahay xiriyo dhul waa loo hayaa si laakiin maaha maalin baa hay'ad dawladeed ku meel ku qabsato wada shaqayn baa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo in dawladda loo wada shaqeeyo wixii soo kordhay gobolka in la wada shaqeeyo si laakiin maalin baa hadaan idhaahno halkan ana ag taagnaa iyo wanaag fadhiyay ina warasna aabana bari xeel military ahaan jirtay taadar gobolku saa ku socon maayo si looga shaqeeyana la garan maayo amarka haddaan la kala qaadanina meeshan la wada joogi maayo cidii amarka diiday way iska tagaysaa saacad baan idinku sheegayaa qofkii amarka iyaga diiday anu madaxweynaha ka wakiila arrinta sagada halka inaan madaxweynaha kala hadlo sanan biliis wax meesha qabta maaha cidaan amarkan qaadanayni anaga amar qaadanayni meesha aan baada ka barasaab noqonaya ama ana ka barasaab noqonaya maanta halkan waxa loo yimi wasaaradda boostada isgaarsiinta xafiisyadeeda laga dhiso annaguna waanu siinay dhul ahaan gobornarkuna wuu nagula mid insha Allah waxaan rajaynaynaa si fiican ay noogu dhisanto adigana waxaan ka rajaynaynaa dhismo wanaagsan oo waxtara tayada sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka Sanaag iyo waliba mas'uul ka socday shirkadda ku guuleysatay dhismaha wasaaraddaasi waxaan maanta u joognaa dhagax dhigii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha degmada iyo dhammaan intii nagala shaqeysay jazaakalla khayr baan leeyahay shirkadii cakaara oo ku guuleysatay waxaan soo nimay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta in la dhax dhigo ayna fuliso shirkadda cakaara construction company aniga waa injineerkeedii hawshan si fiican u fulino Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceerigaabo.